daawadayaal ku soo dhawaada channelka Baadiso. Mawduucan waxaan uga hadli doonaa halista ay baraha bulshada ku leeyihiin dhalinyarta, gaar ahaan marka loo isticmaalo si aan wanaagsanayn. Ayadoo aan ognahay in baraha bulshada ay leeyihiin faa'iidooyin badan, ayaa haddana dhinaca kale waxaa jira khataro iyo dhibaatooyin ay u leeyihiin dhalinyarada, kuwaasoo u baahan in tooshka lagu ifiyo. maadaama isticmaalka baraha bulshada uu aad ugu sii faafayo bulshadeena, isla markaana aan lagu baraarugsanayn halista ay xogaha lagu wadaago baraha bulshada ku leeyihiin dhalinyarta iyo guud ahaan dalka. In ka badan 70% bulshada Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa inay da'doodu ka hooseyso 30 sano jir, taasoo muujinaysa in tirada ugu badan ee bulshadeenu tahay dhalinyar. Arrinta naxdinta leh ayaa ah in xilliyadan dambe ay u muuqato in taleefanada casriga ee loo yaqaan smartphoneska ay xadeen qulubtii dhalintii waxtarka u lahayd dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Isticmaalka baraha bulshada ee dalkeena ayaa sanadihii u dambeeyay ahaa mid sii kordhaya, inkastoo qaybo badan oo ka mid ah dalka uusan gaarin adeega internetka. haddana xogihii ugu dambeeyay isticmaalka aaladaha internetka ee Soomaaliya waxay muujinayaan in inta badan dadka Soomaaliyeed ay sanadihii dambe sii kordhayso tirada dadka adeegsanaya baraha bulshada. Sida caadiga ah, dadkeena waxaa la yiraahdaa waa bulsho hadal ama oral society oo taariikh ahaan hadal iyo suugaan isugu gudbin jiray xogaha, balse hadda xaalku waa isbedelay. Sanadahan dambe aaladaha Facebook, Twitter, Instagram iyo YouTube ayaa kuwa ugu awooda badan ee shabakadaha baraha bulshada ee ay Soomaalida dalka joogto iyo kuwa ku nool dalka dibadiisa wax soo gudbiyaan. Isticmaalka aaladahan casriga ah ayadoo loo adeegsanaya dhinaca xun halkii loo adeegsan lahaa dhanka wanaagsan ayaa sanadihii u dambeeyay ku soo badanaya baraha bulshada, ayadoo dhalinyar aad u badan ay ku xiran yihiin kooxo saameyn ku leh baraha bulshada oo intooda badan dhiirigeliya afkaarta xunxun ee ku salaysan nacaybka iyo kala fogeynta bulshada. Baraha bulshadu waxay leeyihiin faa'iidooyin badan, balse waxaa badan caqabadaha uu kala kulmi karo qofka muslimka ee adeegsanaya. Haddaan nahay Soomaali weliba muslim ah, waxaa nagu waajibaa inaan ka digtoonaano isticmaalka aaladan. Xogaha faraha badan ee lagu wadaago aaladahan ee isugu jira labada dhinac ee runta iyo been abuurka waxay nagu hagi karaan in aan ku wareerno xogaha sugan ee aan aamini karno. Sidaas darteed waxaa laga maarmaan ah inaan xaqiijino xogaha aan ku aragno baraha bulshada ka hor inta aynan wadaagin ama sheer gareyn. Waxaa intaa dheer in baraha bulshada ay mararka qaar nagu hogaamiyaan isbarbardhig ku salaysan waxyaalo xaqiiqada ka fog. Waa in aynu nafteena xusuusinaa in qiyamkeena iyo qofnimadeena aynan ku bedelan karin laag iyo follow. taa beddelkeeda aan diiradda saarno inaan baraha bulshada u adeegsano goob aan ku wadaagno wax wanaagsan oo midkeen kan kale ku caawin karo. Waxaan ognahay in dalkeena in ka badan 30 sano uu ku soo jiray colaad sokeeye. Dhibaatada ay leedahay nacayb abuurka iyo kala sooca bulshada walaalaha ah ay tusaale wanaagsan noogu filan tahay halka uu maanta dalkeenu marayo. Waxaa la joogaa waqtigii aan kala aqoonsan lahayn xumaanta iyo samaanta, runta iyo beenta. Nidaamka soo jiidashada leh ay ku dhisan yihiin aaladahan baraha bulshada oo awood u leh inay aqoonsadaan waxyaalaha ugu badan ee aan jecelnahay, kadibna noo doora kuwo badan oo la mid ah ayaa waxay dhinaca kale halis ku yihiin waqtigeena oo aan uga faa'iideysan lahayn inaan ku cibaadaysano ama camalkeena adduunyo ku qabsano. taa beddelkeedana uu qofku noqdo mid la qabsada oo had iyo jeer ka walwala eegidda waxa la soo dhigay baraha bulshada iyo ka falcelintooda. Dhibaatooyinka kale ee ay dhalinteenu kala kulmaan baraha bulshada waxaa ka mid ah in qofku noqdo mid maqan jooga ah oo ka dhex baxa bulshada kuna jiro go'doon, taasoo ku hogaaminaysa inuu noqdo mid cidlo ku nool oo dayaca dadkii ugu dhawaa noloshiisa. Xaaladaha kale ee soo kordhay sanadahan dambe waxaa ka mid ah in waxyaalaha sirta u ah qofka ama qoyska ay si fudud ugu faafaan baraha bulshada, taasoo halis nololeed iyo mid maskaxeedba u keeni karta dadka xogahooda sirta ah ku faafinaya baraha bulshada. Ka digtoonow sida aad u isticmaalayso baraha bulshada, wuxuu isu bedelayaa mid colaad huriya. Marna ha ilaabin in baraha bulshadu ay yihiin aalado aan annaga go'aansanayno sida aan u adeegsanayno. U isticmaal in aad ku faafiso waxyaalo wanaagsan, iskana ilaali waxyaalaha xunxun. Ha raacin qof ama page aad og tahay inuu xun yahay, maxaa yeelay xumaantu waxay ku saameyn doontaa si aadan ogeyn. Maadaama aan nahay dad muslim ah, waxaa nala gudboon inaan u adeegsano baraha bulshada dhanka wanaagsan oo aan ka fogaano daawashada, akhrinta iyo ka falcelinta barnaamijyada aan wanaagsanayn. Mar walba oo aad muuqaal, qoraal ama sawir aan wanaagsanayn dul istaagto oo aad akhriso, daawato ama ka falceliso, aaladahan baraha bulshada waxay durba aqoonsanayaan in xogaha noocaas ah aad jeceshahay,
waxayna kuu sahlayaan in mar walba oo aad booqato ay kuu soo taxaan waxyaalo la mid ah wixii uu waqtigu kaa galay, taasoo kugu hagaysa mawjado xogo qaldan ah oo habfakarkaaga iyo dareenkaagaba si xun u saameynaya. daawadayaal, intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkan kooban oo aan uga hadlaynay saameynta xun ay baraha bulshada ku leeyihiin dhalinyarada. intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.